kulanti wacan oo wanaagsan idilhaantii baa asxaabta qaaliga ku xiran channelkeena Lucky Team aad iyo aad baan idin salaamay meel kasta dunida daafeeda kaga sugantiin سلام بقرتين هودان دي سمر waxaan ku codsanay fadlan channelka subscribe saartiin kambalelkana furtiin like tan ugu dhiirigelisiin commentigana fikirkiina yartidina nagu soo wadaagtiin hadda waxaan noo wadaa fanaanka caanka ah waxaan ku leeyahay Qamar Suugaani ayaa shaaciyay inuu arooskiisu ka dhici doono caasimadda Hargeysa 14 February-ga waxaan ku leeyahay gabadhiisuna Hargeysa ugu iman doonto arooska uu wada sugi doonaa ruuxantii fanaankaasuna imikana waxa soo tiro badanaya fanaaniintan waxaan ku leeyahay aroosyadoodii oo waxaan ku leeyahay fanaaniin badan waxaan ku leeyahay aroosyadooda isku daba xigeen sideen wada ognahay ba fanaanadeen caanka iyaduna og bad aragsan Qamar Suugaani xaaskiisii hore amba gabadhiisii hore iyadana talow arooskeedu halku ka dhici doona amba aroos ma qabsan doonta waa su'aalo calaamad su'aal saaran tahay bulshadeena dhextaala asxaabtan Lucky Team daawanaysa ayaana dhextaala bal wixii fikirkiina aragtidina idinku commentiga igula soo wadaaga sideen wada ognahay ba Qamar Suugaani arooskiisii koowaad aroos single-ka inuu ka dhacay Ingiriiska balkii kale hadaba waxaan ku leeyahay wada jirkaana waynu sugeynaa inuu caasimadda Hargeysa uu ka dhaco runaantii aad iyo aad nagu farxsan oo noo hambalyeynaa fanaaniinta waxaan leenahay gurkiina hasii bato waxaan ku leeyahay raasaskiina hasii bataan oo sii bashbasho sii barwaaqooba hadaba waxa u taala fanaanadeenan og bad aragsan iyaduna arooskeeda goortu dhici doono kale labada fanaan wada ognahay waa laba fanaan oo ficil dhex yaalay amba xifaaltan badan u dhex yaalay maadaama isla markiiba iyagu waa waxaan ku leeyahay laba lamaana kala sameysteen iyagoo markii hore waa lamaanayaal bal hadaba talow arooskooda mahameen bay wada qabsan doonaan malaba haween isku xigay kala qabsan doonaan talow xidimay kala qabsan doonaan bal idinku soo jawaab asxaabtada qaaliga commentiga ku soo qoran fikirkiina aragtidina aad ka qabtiin asxaabtada qaaliga talow malays oran doona xabad heesoo laga yaabo u soo diyaarin doonta fanaanada caanka ah ee og bad aragtan maadaama yihiin dad isku fana oo ehel fan ah isku ah doonta ma ka soo qayb gali doonta iyadoo og bad aragtan haday aroos dhigato Qamar Suugaani ma ka qayb gali doona arooska runtii waa sheekooyin aad u xiiso badan oo sheekooyinkaasna aad loogu dhex mashquulayo laakiin aan waxaan jeclaan lahaa in aroosyadooda soo boqdaan ee iska soo qayb galaan waayo waa dad fanaanin ah waana dad walaalaha iyagu shaaciyeen sidoo kalena talow fanaaniinta xidiga geeska sideen wada ognahay inanteena nasteexa indho iyadana waxa ka soo qayb galay fanaaniin aad u fara badan arooskeeda bal Qamar Suugaani arooskiisana ma shacab kaliya ka soo qayb gali mise fanaaniin aad u tiro badan sidoo kale fanaaniinta xidiga geeska inuu kale sideen wada ognahay xidiga dambe bay noqdeen بريها ولا ما أرق ما لا مريان ولا ما أرق hadaba maadaama ka tirsan tahay fanaanadan badarsan ma ka soo qayb gali doonaan iyagoo dhameystiran oo yacni xulfahooga dhan la oodahooga wata mise amba dhowr mid ba ka soo qayb gali laba mid saddex mid bal waynu eegi doonaa taana wada taagnaan doona insha Allah waynu sugi doonaa fanaankuna isaga afkiisa ka shaaciyay arooskaas uu qabsan doono bal waynu ka warsugi doonaa idinku hadiyad mahadsantiin asxaabtida qaaliga ka soo hordhicmayne su'aaluhu idinkeeda dhex yaalaan commentiga ku soo reeba